in badan inoo dul qaadatay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanadii aan isleeyahay xilkoodii bay garteen maanta arrintaa la hor keenay golayaasha rayigooda cabiray iyagoo masalaya shacbiga reer somalilan xildhibaanada dhib kastoo soo gaadhay jirgil kastoo soo gaadhay xasaanadoodii oo lagu tuntay waxay la tahay shacbigu wuu idin og yahay wuu idiin abaalgudi doonaa wuu idiin mahadnaqaya wixii maanta ka dhacay golaha waxay ahaayeen waxaa golayaasha ku cusub kow fadhiga wada jirka ah sida la sheegay asbaab gaara baa golayaasha la isugu yeedhaa annagu xalayna waa sheegay waxaan ku ixtiraamnay un fadhiga wada jirka codsiga madaxweynaha xukuumaddu waxay tihi heshiis baan keenaynaa wasiirka arrimaha dibadduna wuxuu heshiis lama gelin waxaa caddaaday warkii wasiirka arrimaha dibadda boroshuur baa la keenay bahayaan ayaa xayeysiiska maaragtay hay-adaha ayaa lagu xaysiiyo dukaamada iyo buweeka oo arkayseen dee dushana waraaq halkan lagu qoray cid kala seexatay aanay jirin cid ay dhex martay aanay jirin cid ay qabanaysaana aanay jirin sharcina aan ahayn waxaa kaloo la yaab leh baarlamaankaygu waxaa ansixiyey bal is weydiiyaan waxaa ansixiyeen marka waxaan leeyahay arrintaasi arrin kayra sharciya ba ahayd oo ka dhacday halkaas madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan innagaa dooranay waxaan is leeyahay arrintaa badbaadadeedu maanta madaxweyneha maadaama aynu doorannay horta innaga shacbiga u tola madaxweynaha waxaan soo jeedinayaa madaxweynaha somalilan laba lugood bay ku taagneed horta labadii maantay ka jabtay mid waa ummadda sharciga ku dhaqanto oo dimuquraadiyada inay tahay waxaa caddaatay inaan sharciga ku dhaqmayn golihii waa laaftuubay xildhibaanadii rayigooda cabirayna golaha hortiisa lagu garaacay anigu guddoomiyaan ahay golaha baarlamaanku guurtidii iyo wakiiladuba ciidan baa ku qoran oo dawladdu siisay guddoomiyeyaashu ama anig ha noqdo ama saleebaan ciidankaasoo annaga naga amar qaata ayuunbaa golaha soo geli karaa anigu 8 nin ama 9 ama 10 ha noqdaan wixii maanta halkan ka dhacay waxay ahaayeen waxaa laga heshiiyey malaayo ciidan cusub oo kaayagii ahayn ayaa raggana laayay xildhibaanadana laayay xaqna aanu lahayn inay golahaba soo galaan waa ka xumay saaxiibkii saleebaan inuu ogolaado ciidan aan ciidankii golaha ahayn oo meel laga keenay oo meel ku urursanaa oo hawshan loogu talagalay intay golaha soo galaan inay xildhibaanada hortiisa ku garaacaan aad baan arrinta labaadna waxay ahayd arrin nabadgeliyo somaliland labada lugood bay lahayd midna nabadgeliyuha midna dimuquraadiyad waxaan idin leeyahay nabadgelyada maanta idinku dambaysa haddii dee taasi fusho oo saldhig la sameeyo anigu waxaan qabaa wax intaa ka weyn inay jiraan in qarannimadii somaliland laga noqday baan qabaa goolisitaaggii somaliland in laga noqday baan qabaa waayo ciddan aan heshiiska la gelaynaa ee ciidanka keensanaysaa somaliland waxay u taqaanaa qayb ka mida soomaaliya marka waxaynu aqbalaynaa inaynu nahay qayb ka mida soomaaliya heshiiska waxaa wada gala laba dhinac oo siman shacbiga badan bay ku celceliyeen oo yidhahdeen saldhig haba la siiya haddii ay noogu bedelayso ictiraaf laba qaran oo isku mid aynu noqonayno
markaa dee waa hagaagaysaa dhibaatooyinka ku noqnoqon maayo xalay baan ka hadlay saldhig military iyo saameyntiisa waa garanaysaa waxaa loo isticmaalayaa arrimo military cid baa lagaga duuli doonaa ciidan baa soo degi doona amisom inay soo degtaaba laga yaabaa dee laftigeedu waayo inagu ma xukuno dhulkaa maynu xukuno maaha waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland soo jeedinayaa arrintaasi hal badbaaday leedahay golayaal idin matelayo shacbiga uma jiro wadawadi ka arka laba xukuumad dareenkii shacbiga ku shaqaynayso idinka naxaysaana ma jirto madaxweyneynu dooranay marka madaxweyne waxaan soo jeedinaya arrintaas inuu dib u eego madaxweyne arrintaas dib u eeg madaxweyne arrintaas dib u eeg xalka keliya hadhay waxa weeye diidmo shacbi maadaama xukuumaddiina arkaysaan dee golayaashiina arkaysaan diidmo shacbi oo midaysani waa inay jirtaa marka shacbiga labada xal unbaa idin hadhay baan leeyahay labada xal unbaa idin hadhay in madaxweyne dib u eego wixii halkaa ka dhacay sharci darray ahayd laba in shacbiga dareenkiisa iyo diidmadiisu ay meel marto waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda waxaan si adag u cambaaraynaya waa markii labaad xukuumadda kulmiye ay xildhibaano xasaanadda leh xidhxidho waxay la tahay sharcigaynu ku kala sarraynaa sharcigaa dhammaanta inaga sarreeya sharciga hala ilaaliyo waxaa kaloo xidhan saraakiil badan oo sharci darro u xidhan oo xisbiga ka tirsan waxaa xalay gurigiisa lagala baxay isagoo carruurtiisa la jooga sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga oo wada garanaysaan baro saabkii hore hargeysa xamarji wax lagu xidhay iyo waanan loo geeyey midna ma jiro carruurtiiba isagoo la hurdo laga soo qarday aniga markii askarta soo qabatay ila soo hadlo askar baa ay wadatay buu yidhi dabeedna telefonkii male waa laga qaaday dabeedna badandoona baan idho xalay saldhigyadoo dhan waa la tegay mar dambe waxa laga soo helay saldhigga dhexe waxaa ka horreeyey guddoomiyihii gobolka awdal waxaa ka horreeyey saraakiil kale oo sare oo mayor ku-xigeenkii hore uu ka mid yahay boorame waxaa la xidhxidhay saxaafad fara badan oo weliba agabkoodiina laga qaaday saxaafaddeena cidina wax ma siiso inankaa yara saxaafadda ahi waxaa laga yaabaa inuu kamarad soo bariyey oo saaxiibadiisa iyo ehelkiisa iy soo iibiyeen maanta qaar baa kamaradii laga qaaday qaar baa berbere ku xidhan waxaan usoo jeedinayaa dhammaan saxaafadda xidhxidhana in xorriyaddoodii loo soo celiyo shacbiga waxaan ugu baaqayaa in arrintaa masiirkeedu uu ku xidhan yahay go-aankiina waa in go-aankiinu caddaadaa waa in dareenkiinu caddaadaa waa in diidmadiinu caddaataa asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu